haddii la dhihi lahaa ragga gudniinkooda waa waajib oo la isku waafaqsan yahay waxaan leenahay sax ma ah culimo badan baa waxay qabaan ragga gudniinkooda laftooda waa sunne waajib ma aha sida gudniinka dumarka la isugu khilaafsan yahay xukunkiisa ma sunna mise waa waajib ayaa gudniinka raggana la isku khilaafsan yahay ma sunna mise waa waajib fuqahada muslimiinta dhexdooda marka maxaa kana adkeeya ficlan khilaafku waa ka yaraa adag marka dumarka la yiraahdo ragga khilaafka rag ku jira dumarka ragga ku jira adag laakiin labadu waa lama soo khilaafiyo marka laga hadlayo ma waajiba mise waa sunna ka aan ka hadlayno marka sida halkan uu ku saabsan yahay waa gudniinka noocaas ama gudniinka fircooniga ah oo xubinka dhan in salka laga gooyo ah kaasi wax weeyaan waa xaraan qat'i ah waana jariimo waalidka sameynaya iyo haweeneyda gudniinka noocaas ee fircooniga sameynaysa labaduba gabadhana dambi weyn bay ka galeen ilaahay agtiisana dambi weyn bay ka galeen laana xubinkan jiritaankiisa muhiimad baa loogu talagalay ilaahay wuxuu u abuuray macno weyn iyo muhiimad baa loo abuuray marka adraarta iyo dhibaatooyinka kale uu leeyahay ee gabadha ku dhacaysa iska badaa warkiisa laakiin waxa xusuusin mudan gudniinka fircooniga oo bulshada intooda badan hadda laga tagay laakiin wali meel ku dambeeyay ee dadka qaar kood yaa gaarsiiyay bulshadu inay ka tagto gudniinka fircooniga ma dawladaha qasbay ma hay'adaha qasbay mise dacwada iyo culimada iyo wacyigelinta keenay wacyigelinta culimada iyo dacwada keentay oo dadka iyo ummadda fahansiisay gudniinka noocan inuu soo saxsanayn iyo dhibaatooyinka uu leeyahay ma aha waxay hay'ada keeneen oo hadda ay tahay hay'ada ummadda ka dhaadhiciyeen ay natiijadan keeneen ma aha Soomaalida gaar ahaan dawlado barnaamijka ka shaqeeyo oo hirgeliyana ma aynan helinba oo la dagaalamo laakiin bifadlilaahi waxa waaye dacwada iyo wacyigelinta iyo culimada dowrkooda ayaa wuxuu keenay bulshada inteeda badan inay hadda ka baraarugto gudniinka fircooniga oo laga tago meel uu ku dambeeyo waa jira iyadoo ku dambeeyo inta kaga soo gudubno culimada muslimiintu waxay isla ogol yihiin in gudniinka sunniga ah ee hadda aan soo tilmaanay ama gabdhaha rag ha ahaado ama dumar ha ahaadee inuu mashruuc yahay mashruuc maxaa la yidhaahdaa mashruuc bimacnaa wax weeyaan in uu ugu yaraan bannaan yahay markaa kadib ha la isku khilaafo shareecadu inay jidaysay waa la isla ogol yahay laakiin jidaynta shareecadu ma waxay gaarsiisan tahay waajibnimo mise waxay gaarsiisan tahay sunnanimo ha la isku khilaafo laakiin waxa la isla ogol yahay inay shareecadu ay jidaysay inta waa qadarka la isla ogol yahay waana qadarkan doonayno inaan dul istaagno inay culimadu isla ogol yihiin iyagoo nusuusta aan soo sheegnay cuskanaya maxaa xagee laga qaadanaya aan dhowr imaam hadalkooda soo guuriyo waxa kamid ah al-imaam ibn hubayrata ash-shaybani kitabkiisa ikhtilaafu al-a'imma wuxuu leeyahay ittafaqu على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الأنثى مشروع علماء المسلمين توحي اسكو راعين قدنين كالرقع إيه كان دمر كوبا إنو يهي وح شريعادو تشيديسي وحي اسكو راعين كاقا قبت وحاكم إذا الإمام أبو محمد بن حزم في كتابه مراتب الإجماع أسوقنا وحو ليه واتفقوا على إباحة الختان للنساء علماء المسلمين توحي اسكو راعين دمركا قدتان كودو إنو بناي هي وحبنانو شرعاتو تشديسينوي الإمام ابن رجب الحنبلي كتاب كيس فتح الباري صحيح البخاري وكو شرح يصور وحوليه وختان المرأة مشروع بغير خلاف dumarka guditaankoodu waa wax shareecadu jidaysay khilaaf la'aan culimadu iskuma khilaafsan
الإمام ابن القيم عليه رحمة الله كتاب كيس تحفة المولود بأحكام المولود يسونا وحوليه هاي لا خلاف في استحبابه للأنثى واختلف في وجوبه علماء اسكما خلاف سنة إن السنة هاي قدنين كالدمركو لكن وحي اسكو خلاف سيهن بواجبا الإمام أبو الحسن بن قطان الفاسي في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع يسوون وحوليه واتفقوا على إباحة الختان للنساء وحي اسكو راعين علماء دمرك قدتان كودو إنو بنايهي الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في الفتاوى الكبرى أسونا وحوليه وذلك فإن ذلك مشروع مؤكد للمسلمين باتفاق الأئمة قدنينك رجع دمرك ما كل يسوي الله كلا قادم وحوليه أرين شريعة بنا يسوي لي بعدك إن يتهي مسلمين تردم باسكوا وافق سنبول طيب أنت هدينا فهنا مرك وإلى تقريبا لحكم إذا أئمة مسلمين توسوق وريي waxay culimada muslimiintu ka qabeen oo inay isla ogol yihiin in shariicadu banaysay inay shariicadu jidaysay طيب marka la soo gaadho shariicada jidaysay ayaa jidayntu waxay u kala baxaysaa ma shay iska banaan oo mubaaxa ma shay mustahab oo sunna aba ma shay waajib oo intaaba ka xoog badan baa sidaasay aimadu isugu khilaafayaan marka kadib laakiin maxay isku waafaqsan mas'alada dabageliskeedu iyo sanadii ka lumin mas'aladu waxa weeye ma wax shariicadu jidaysay oo banaan ba mise wax xaraan inay shariicadu jidaysay la islama diidana culimaduna isku khilaafsan laakiin jidayntaasi heerkay gaarsiisan tahay ma waajiba ما مستحبة ما مكرمة ومكرمات ما هي هدنا تاهي تاسع إسكوسي خلافة يعني. طيب إن يواجب تاهي الرجل يضمر بين لجوده وحقب الإمام الشافعي جمهور أصحابه أظهر الروايتين عن الإمام أحمد بعض المالكية وحيليه إن الرجل يضمر بين لجوده وواجب culimada qaar waxay leeyihiin waa sunno ragana waa sunno way yara adag tahay in la muxuu la gudo dumarkana waa uun iska mustaxabo way ka yara fududahay gudniinka dumarku waa ka yara fududyahay sidana waa sida madhabka xanafiyada iyo maalikiyadu ay qabaan madaahibtii afarta ahayd baa marka kala duwan oo qaarna waxay leeyihiin rag iyo dumarba waa iska sunno waa laga tagi karaa macnaha oo ruuxu khiyaarkiisa waa uga tagi karaa طيب qaarna waxay leeyihiin lagama tagi kareen labaduba waa waajib qaarna way kala qaadayaan laakiin maxay isku waafaqsan yihiin waxay isku waafaqsan yihiin inay tahay shay shariicadu jidaysay oon xaraan ahayn qadarkaas ay isku waafaqsan yihiin oo culimadu ilaa waqtigii saxaabada ilaa hadda ay isla ogolyihiin khilaaf ku jira طيب inta way inta aan doonayno inaan dul istaagno oo fikirka hadda socdaa iyo wax weeyaan waa xaraan dambi ah waxa socdaay oo hadda doodu ka taagan tahay wax weey waa xaraan aan la ogolayn oo tashriic iyo qaanuun laga jidayn oo cidii samaysana la soo xiri oo maxkamad la saari qadarka marka wax weey in shayga laga dhigo xaraan hadana dambi ah ruuxii sameeyana la ciqaabo qadarkaasi wuxuu ka hor imaanayaa ijmaaca culimada oo ah inuu yahay shay shariicadu jidaysay qolada tiri waa sunno iyo qolada tiri waa waajib waxay isku waafaqsan yihiin inaan la dhihi karaynin shaygani waa shay xaraam iska badaa in laga dhigo shay xuquubo iyo dambi laga dhaliyo ama ruuxa loo ciqaabo iska badaa in laga dhigo waa tagi doonaa insha Allah taala su'aasha isweydiinta la waxay tahay xikmadda ku jirta maxay tahay jidaynta gudniinka waxay yiraahdaan laba ragga gudniinkooda maqsuudka laga leeyahay xikmadda ku jirta waxa weeyaan waa dahaara ku jirta
سيدنا يا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المختفية في القلفة يعني وحوي باشن ليلة هذا هرجا كرسارا حبن كترن كقيبتي سهرة أي قلفة ليلة وحود دبولة يا قيبته هرة حبن كترن كيرجع قيبتها مركو دبولة وسخ باكو أروريس وسخ ذا سمرك إن لا النظيفية ولا جن نظيفية أي جنين كرجع لولا كذا وكذا وإن لا النظيفية ونظافة أما دمرك والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها ابن تيمية زاسولي علماء بدنا زاسولي وحلوت شذي الدمرك إن لجذو شهوته ذا يضرين كودا أيا ليسوا للتريا قياس الزيادة ذي قوتها لقى خفيفية وسيوة وحول فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغترمة شديدة الشهوة هذي هوين يدو أي بوري قبطة وأين قدنين وحين نقول يسابوا يلي مغتلمة شديدة الشهوة قد الشهوة دي يدو زائتة أو محوقها هاي محوقها هاي أنس حكمين كريم ده كاريس إني شهوة زيادة دي أي عفدة دي دور صونان تيدا خطر جلس ساس درادد باوحو يلي waxa la yiraahdo markay iscaayayaan dadku bini aadamku markay iscaay waxay ku yiraahdaan wiilka hooyadii aynan gudnayn waxay ku dhahan yabna alqalfa ki hooyadii buuriye qabka ayadu way isku caayaan maxay yeelay fa inna alqalfa tatadallu ila arrijali akthar haweeneyda aan la gudini inta badan ragay u hanqaltaagtaa buu sida badan ولهذا من الفواحش في نساء التتر والنساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين سيداس درادي دمرك عدانك إفرنج وريرو دمرك عدانك إيه دمرك تتارك دحضو ضبويلي فواحشت إيه الزينة تالا ما دحتالا دمرك مسلمين يعني وحويان إلى هذا بواسدي إلى هذا بواسدي marka wuxuu leeyahay waxay keenaysaa in yaani wax weeyaan laga dhigo shay dhexdhexaada shahwadii dumarka wa idha hasala al mubalaghatu fi al khitam bi dha'fati shahwa hadii xubinka la gooynayo lagu xad gudbo oo qiyaas weyn laga gooyana waxay keenaysaa buu markaas inay shahwadu daciifto wa haweeneydii dareenkeedii iyo shahwadeedii ay hoos u dhacdo oo iyadana ayna dareenkeedii gudanin ninkuna uusan dareenkii la rabay ka helin تانا لما ربوي معنا فلا يكمل مقصود الرجل حديث اللي قويه بوري قياستي شرعه وقلت لك شيء وحيد مركاسي حصل المقصود باعتدال مقصود كي للربيبه مركاسي سي دحدحاده او اسو ديليترن او حصيليا انت سياده هيده فتنه كيني لهيدنا waa laga gooyay in ku filan oo shahwadeeda ku gudato ninkeeduna shahwada ku helana waa u joogtaa sidaas daraadeed i'tidaal iyo tawaazun ba iimaanaya wallahu a'lam marka xikmadda ku jirtay waa xikmaddaas ilayna culimada muslimiinta waxaan doonaynaa marka inaan dul istaagno oo mudan runtii masalada meesha ay u dhimanaysaa waxaan hadda soo sheegnay gudniinka dumarka xaaladaha ugu yar meesha ugu hooseysa culimadu waxay leeyihiin waa mashruuc ama mubaax dhe ama mustahab dhe qaar waajib bay gaarsiiyeen laakiin kaba soo qaad ama waa mustahab waa shay sameyntiisa ajir laga helay ama ma ahe waa shay iska mubaax ah oo sameyntiisa ayna dhibaato ku jirin طيب culimadii muslimiinta hal nin ah hal mid oo laga soo guuriyay ma jiro gudniinka dumarku waa xaraan kutubta ilaa waqtigii saxaabada ilaa maanta haddaad daba gashaan ma helaysaan hal caalim oo muctabar ah oo yidhi gudniinka dumarku waa xaraan ma jiro haddii la yidhaahdo marka annagoo waqtigan hadda joogna gudniinku waa xaraam oo waa dembi waa khilaafu lijmaac
wixii ummaddu isku raacday culimadeedu isku raacday soo jireenka ahaa nusuusta salka ku hayay ayaynu khilaafnay waan garab marnay waxaan jidaynay haddii uu ruuxu isagu lafahantiisa iska xarimayo waxaa kala duwan inaad qaanuun jidayso qaanuun xarimaya markaad qaanuun jidayso way ka sii daran tahay qaanuunkaasoo dhahaya waa xaaraan isla markaa ciddii samaysana waa in la xidho la maxkamadeeyo dembi ka dhigaysa la ciqaabo markaa way ka daran tahay oo waa tabdiil sharci illaah waa shariicadii ilaahay oo aad beddeshay oo aad ku beddeshay qawaaniin bini aadan ay wataan way ka culus tahay markaasi ma sahlana halkaasaa marka waxaan isweydiinaynaa yaa xaq u leh xalaalaynta iyo xaaraamaynta iyo jidaynta yaa xaq u leh yaa leh xaqa isaga allah keligii baa iska leh qur-aanka kariimka iyo sunnada nebigu masaladaas si cad bay u qeexeen oo aan gabasho lahayn cidda jidaynta iska leh iyo xalaalaynta iyo xaaraamayntu waa allah oo keliya xaqaasi cid kale muuna siinin laa baarlamaan ma laha walaa golo wasiiro ma laha walaa madaxweyne ma laha walaa sheekh ma laha waxay shareecadu bannaysay inuu yidhaahdo waa xaaraan xaqaasi cidina awoodu ma laha waa xaq ilaahay gooni u leeyahay waay maxaa ku tusaya bal min almacluumi bidaruurati min alkitaab wasunna walijmaac masaladaasi waa masalo caanahoo la wada ogsoon yahay adiladeedana waxaa ka mid ah allah qur-aanka kariimka wuxuu ku leeyahay alaa lahu alkhalqu waalamru allah abuurka isagaa iska leh amarkana isagaa iska leh amarku waa laba nooc alamru alkowni waalamru sharci kownkan amarka lagu maamulee kun ah ilaahay baa keli u leh ma cid baa la wadaagta maya kownka sharci dejintiisa iyo nidaamkuu ku socon lahaana allah baa gooni u leh oo kutubtuu soo dejiyey iyo rusushuu soo diray buu u soo dhiibay qaabkii bini aadamku u noolaan lahaa ee xalaashiya xaaraantana isagaa iska leh masaladaa meesha lagu xidhay u fiirsada abuurka ilaahay ma lagu haystaa ya war abuurka ilahay miyaad ku haysataa baarlamaanow ma ku haysataa oo golo wasiirow ma ku haysataa oo madaxweynew ma ku haysataa oo wadaadow ma ku haysataa ilaahay inuu abuurkan leeyahay soo jawaabtu maya maaha jidayntana inaad ku haysato waa khalad jidaynta iyo abuurka cidda abuurka iska leh ayaa jidayntana xaq u leh masalada meeshaasaa lagu xidhay meel dhow ma ah haddaad ilaahay addoommadiisa ku haysataan oo dhulkan iyo samadan iyo addoommadiisa aada ku haysataan ood leedihin waan la abuurnayna hadde meelay idin geysaba la qabsada jidaynta haddaad se ogoshihiin abuurka allah iskale jidaynta inaad ku qabsataan waa xaqdarro waana gardarro alaa lahu alkhalqu waalamru saas daraaddeed buu allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ka dhigay jidaynta iyo xalaalaynta iyo xaaraamaynta nooc shirkiga ka mid a allah wuxuu yihi tabaaraka wa tacaala am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illaah ma waxay leeyihiin kuwo ilaahay wax la wadaaga oo diinta xaggeeda uga jideeya waxaan ilaahay idmin kuwa jidaynta inay wax jideeyaan loo ogolaadayna kuwa xaqa ilaahay la qabsaday oo la haystaa laga dhigay kuwa xaqaas siiyeyna waxaa laga dhigay mushrikiin ilaahay wax la wadaaji marka adiga haddaad ogolaato jiho kalea wax jidayn kartana shirki baad gashay kaas isdhigay booskii wax lagu jidayn lahay waxbaan jidaynayaa yidhina xalaal iyo xaaraan baan waxbaan xalaalayn oo xaaraamayna xaqii ilaahay buu la qabsaday oo ilaahay xaqiisii khaaliska ahaa ayuu la qabsaday waana masalo halis ahoo gaalnimo iyo kufri keenaysa waa iska cadla sidaas daraaddeed buu ilahay wuxuu ku magacaabay shurakaa am lahum shurakaa waa shirki waxaa kaloo masaladaa tilmaamaya xadiidka aayadda qur-aanka fii suurati tawba ilaahay yidhi
ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaah. waxaa laga hadlayay yahuudda iyo kirishtankaa laga hadlay. waxaa la yidhi wadaado culimadoodii iyo suufiyadoodii ayay rabbiyaal ka dhigteen alla ka sokow. cadiy ibni xaatim saxaabiga la yidhaahdo ayuu nebigu ku dul akhriyay markuu yimid isagoo soo islaamayoo saliib wuxuu qabay, macatab wuxuu qabay oo silfar ama fida ayuu qabay. markaasuu soo islaamay, nebigu yimid sal alla alay wasalam. markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi tuur wax aayaddan waa ku dul akhriyay. markuu aayadda ku dul akhriyey baa wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo cadiy ibni xaatim, rasuulka ilaahay ow innahum lam yacbuduuhum mayna caabudi jirin, culimadooda iyo wadaadadooda suufiyada mayna caabudi jirin dadkan aad adiguna leedahay ittakhaduu axbaarahum warabbaana arbaaban min duuni illaah, mayna caabudi jirin. markaasuu nebigu wuxu uhi sal bala inayna caabudi jirin iska baddaaya way caabudi jireen. oo seen ku caabudi jirnay? innahum xaramuu calayhim alxalaal wa axalluu lahum alxaraam faatabacuuhum fadalika cibaadatuhum iyaahum buu nebigu sal alla alay wasalam. wadaadadiinna soo wixii ilaahay xalaaleeyey idinkamayna xaaraamayn, wixii alla tabaaraka wa tacaala xaaraameeyeyna soo idinma xalaalayn, soo maydaan ku raacin? haawaay. nebigu wuxu uhi sal alla alay wasalam cibaadadaad caabudeen waa taas, oo ma cibaado kalea meesha taalla? haddii intay golaha muxuu ahay baarlamaanku intuu wax kuu xalaaleeyo kuu xaaraameeyo adigana aada sacabka u tunto, oo golaha wasiiradu intay waxay doonaan xalaaleeyaan oo xaaraameeyaan adiguna aada ku raacdo, nebigu wuxuu leeyahy sal alla alay wasalam waad caabuday, rabbi baad ka dhigateen. ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaah. masaladu masalo dhow ma ah, masaladu masalo dhow oo ruuxu muslim oo aakhare rumaysanoo ilaahay u tagahayo oo janniya naar rumaysanoo masalo uu ku khamaari kara maaha, masalo uu ku fududaan karana maaha. masalada xalaalaynta iyo xaaraamayntu masalo sahlan maaha.